madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa la filayaa in ay tagaan goobaha laga qodayo ceelasha shidaalka Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo kala duwan oo la hadlay warbaahinta Xuuraansi waxa socda abaabul xooggan oo la xiriira qaabka ugu fudud ee madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Turkiga iyagoo saaran diyaaradaha casriga ee Turkiga inay ku gaaraan dhanka iyo badda Soomaaliya qaybo ka mid ah gaar ahaan goobaha loogu talagalay in laga soo saaro shidaalka iyo macaadinta kale ee Soomaaliya dhex eegta saraakiisha iyo mas'uuliyiintu waxay tilmaameen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo ku saabsan arrimahan si loo xadido xaalad walba oo keeni karta culays guud oo la xiriira in la ogaado dhaqdhaqaaqyada guud ee ka socda dhanka badda iyo bariga Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyadan wararka uu helayo warbaahinta Xuuraansi ayaa waxay sidoo kale tilmaamayaan in maalmihii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo guud oo arintaas la xiriira iyadoo saraakiisha iyo mas'uuliyiintu ay bilaabeen qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafka ama ujeedka ugu weyn ee arintaas ku saabsan waxaana mas'uuliyiinta iyo xubnaha sidoo kale ay tilmaameen in ay wadaan isku dayo kale oo la xiriira arrimahan si loo gaaro hadafka iyo ujeedka ugu weyn ee la xiriira arintaasi wararka uu helayo warbaahinta Xuuraansi ayaa sidoo kale tilmaamaya in maalmihii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafka ama ujeedka ugu weyn ee arintaasi ku saabsan mas'uul saro ka tirsan dhanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo guud oo ku saabsan arrimahaasi iyadoo saraakiishan ay tilmaameen in safarka madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Turkiga uu yahay mid si guud iyo si gaar ahaaneed diiradda lagu saarayo qaabka loo gaari karo hadafka ama ujeedkaas sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta iyo xubnahaasi ilo wareedyo kala duwan ayaa dhanka kale waxay warbaahinta Xuuraansi u sheegeen in maalmihii u dambeeyay ay dhacayeen kulamo kala duwan iyo doodo la xiriira arrimaha ku aadan in la soo saaro shidaalka iyo macaadinta kale ee Soomaaliya si looga faa'iideysto fursadaas oo mustaqbalka keeni karta in ahdaafta ugu waaweyn ee la gaari karo ay tahay in la ogaado xogaha guud ee ku saabsan dhaqdhaqaaqyadaasi taas oo ka dhigaysa in mas'uuliyiinta Ankara ay markan sheegayaan inay ka shaqeynayaan qaabka ugu fudud ee loo gaari karo ujeedada ama hadafkaasi taas oo keenaysa in saraakiisha mas'uuliyiinta iyo xubnahanba ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira isku dayadaasi waa sida ay hadalka u dhigeen mas'uuliyiinta dowladda Turkiga ayaa dhankooda waxa ay tilmaameen in ay wadaan isku dayo kale oo la xiriira qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafka ama ujeedka ugu weyn ee la xiriira fulinta howlgalladaasi taas oo ka dhigaysa in ugu dambeyn natiijada ka soo bixi karta soo saarka kheyraadka iyo shidaalka dabiiciga ee Soomaaliya in ay noqon karaan kuwa ugu habboon ee xilligan laga faa'iideysan karo waa sida ay tilmaameen mas'uuliyiin ka tirsan dhanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Turkiga marka ay gaaraan goobaha shidaalka laga qodayo waxay u noqon doontaa fursad weyn oo muhiim ah taas oo ka dhigaysa in ka faa'iideysiga kheyraadka dabiiciga ee Soomaaliya uu yahay midka ugu habboon ee xilligan diiradda lagu saarayo waa sida hadalka loo dhigay taas oo dhanka kale ka dhigaysa in mas'uuliyiinta iyo xubnaha kala duwan ee dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ay bilaabeen inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo guud oo ku saabsan in la soo gaaro ama la sameeyo howlgalka natiijadaas taas oo ka dhigaysa in haddii arintaas ay dhacdo suuragal ay noqon karaan in la sameeyo waxyaabo fara badan oo la xiriira qaabka ugu fudud ee Soomaaliya ay ku gaari karto hadafka ama ujeedka ugu weyn ee ku saabsan in la soo saaro kheyraadka dabiiciga ee Soomaaliya madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa dhankooda waxa ay tilmaameen in ay wadaan ka faa'iideysiga fursadaas kala duwan iyadoo saraakiisha mas'uuliyiinta iyo xubnahan ay bilaabeen in la sameeyo dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arintan taa oo keentay in xubnahan sidoo kale ay bilaabaan isku dayo kala duwan oo arrimahaasi la xiriira taas oo ka dhigaysa in xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo in guud ahaan mas'uuliyiintan
ay bilaabaan sidii loo gaari lahaa hadafka ama ujeedka ugu weyn ee la xiriira ka faa'iideysiga fursadahaasi kala duwan si ay Soomaaliya u hesho kheyraadka dabiiciga ah ee laga soo saarayo baddeeda iyo barigeeda, taas oo ugu dambeyn keeni karta in abaabulka iyo qorshahaas uu noqdo mid diiradda lagu saarayo. waa sida ay hadalka u dhigeen mas-uuliyiinta iyo xubnahaas waa mas-uuliyiinta iyo xubnaha oo ugu dambeyn dhankooda tilmaamay in ay wadaan isku dayadaasi si loo soo saaro kheyraadka kale ee dabiiciga ee Soomaaliya ku jira. wixii warar iyo dhacdooyin arrimahan ku saabsan baahinteena tan xigta ee warbaahinta Xuraansi ku daawo.